halkan hadda aan ku sugannahay waa masjidka isbahaysiga ee magaalada Muqdisho dadweynaha ku dhaqan magaalada Muqdisho ayaa waxa ay halkan maanta u yimaadeen salaada Ciidul Adha si ay ugu tukadaan waxana salaada ciida ee masjidka isbahaysiga ka soo qayb galay ra'iisul wasaaraha xukuumadda dawladda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Cali Khayre iyo sidoo kale wasiir ka tirsan xukuumadda dawladda federaalka Soomaaliya xildhibaano iyo shacab weynaha ku dhaqan magaalada Muqdisho hadal kooban oo ra'iisul wasaaraha xukuumadda dawladda federaalka Soomaaliya uu ka jeediyay munaasabadda ciida ayaa wuxuu dadka Soomaaliyeed ugu baaqay in ay dawladooda garab istaagaan inta ka bacdi dadka سبارينك همجي شرفت وصوماليا وصوماليا وإن كوننا ما عندي صومالنا يصير وأنا عرفتهم الليلة reer Muqdisho ayaa waxaan la dhaxqaanay codbaayaha Star TV iyagoo ka hadlaya dareenkooda ku aadan maalinta munaasabadda ciida حاليا دمان مسلمين عيد مبارك كل عام وانتم بخير بالعافيه تقبل الله منا ومنكم صالح الاعمال العاش ونكمل سوق الهي الله ان شاء الله سبحانه وتعالى امان الاسلام والسلام يا انت مقعيك بسم الله الرحمن الرحيم وري هورين عيد واحد عبد الله اسماء waxaan leeyahay ummadda Soomaaliyeed ciid wanaagsan marba dunida ka jirta ciid magaalada Muqdisho dabcan waa dareemaysaan oo wada jeedaan dhalinyarada Soomaaliyeed halkan wada taagan waxaan ku wada qaadanaynaa maalin farxadeed maalin nabadeed waxaan idin leeyahay inta TV-ga naga daawanayso dhammaan ciid wanaagsan meel walba dunida ka joogta mid kamida wasiirada xukuumadda dawladda federaalka Soomaaliya oo waraysi gaar ah ku siiyay isla masjidka telefishinka Star TV waxa uu hambaliyo u diray dhammaan ummadda Soomaaliyeed عبد السيدي وهري وها بدونيها قولك الشغل لبا هوسه بدنا بدونيا كدينك حرمت تلسوجينta Soomaaliyeed وهرين بدونيا كشغل تلفزيون ستار تي في الحمدلله maanta halkan kaaga aadan waxaan u shacabka Soomaaliyeed maxay tahay بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا وحده ونصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة واصيلا waxaan leeyahay hambalyo shacabweynaha muslimiinta adduunka gaar ahaan shacabweynaha ee Soomaaliyeed meel walba joogaan gaar ahaan shacabweynaha oo aad u jeclahay oo Shabeellaha Hoose oo 10 sano ila shaqeeyay waxaan leeyahay hambalyo ciidan ciidul adha mubaarak iyo TV-ga Star TV iyo saaxiibkayga maxaa barnaamijka daadiya baabin ma soo jeeda fara dheere waxaan leeyahay hambalyo iyo TV-ga kaameramanada waxaan leeyahay shacabweynaha Soomaaliyeed sharaf weyn ay noo tahay halka aad arkaysaan halka oo TV-ga Star ugu wareysanayo waa masaajidka isbaaysiga islaamka Soomaaliyeed waay multaqa المسلمين في الصومال واي معناها هذه الفصل ماشي مسلمين maxaa ay ku kulmaan aniga taariikh weyn ay leedahay sababtoo anoo yar iyo anoo weynba halka masaajidkan ku soo tukan jirnay madaxweynihii hore Soomaaliya soo gaaray maxamed Siyaad Barre Rabbi raxmi Ilaahay asiyo iyo maxaa cali samatar Ilaahay naxariisto
iyo raggii maxaan ku yiraahdaa wasiiradii agaasimayaashii baashtooradii janaraaladii iyo maxaan ku yiraahdaa goboltoorayaashii komisaariyaashii waxa khasab ahaan jirtay in madaxweynaha halka lagu soo tugo ilaa xaalad ilaa man aba ninkii maxaan ku yiraahdaa hool loo diri maahin haddana masaajidka in la nooleeyo saas oo maxaan ku isbeesay islaamku yahay waxa kale oo halkan tacsiir u dariya raggii masaajidka asaasay culamaa diinkii Soomaaliya oo runtii culamaa warathul anbiya ayaa leeyahay culimadu waxay wakiil ka yihiin maxaan ku yiraahdaa rasuulka alayhi salaatu wasalaam anbiyada wakiil ka yihiin سالن سيد الشيخ محمد علي حسن الشيخ محمد حسن أبو الصحوة في الصومال أها يا شيخ إبراهيم سولي لا نحرسته شيخ علي صوفي لا نحرسته وأحكام التجويد وكياني بصوماليا يوم حنقول هذا الشيخ شرفه لا نحرسته أبي حنقول جماعة التبليغ يوم حنقول هذا شيخ نور أبكي يوم حنقول هذا شيخ علي وجيس وانقعزوسته ولمثي أصلا كهري عمرك سلا وبركي وعليه عملي عليه شيخ علي وجيس وجوده هذا النال شو نقول سبب وساكن قوتي كنا هالكان وحين موجنيسا marka waxaan leeyahay masjidkan taariikh buu leeyahay waa meesha tasaamuxa iyo maxaan ku raada shacabka loogu hambaliyeeyo waa meesha maxaan ku raada diinta maxaan ku raada faafitaankeeda maxaan ku raada dawladdu lafteeda inay diinta jeceshay diin jecel meelaha lagu ogaan lahaa maxamed cabdi cismaan maxamed faradheere telefishinka Star TV masjidka isbahaysiga magaalada Muqdisho